dadaal noocay ay u baahan yihiin si ay u gaaraan hadafka iyo guusha ay rabaan. marka koowaad wax walba waxay ku socon dhalinyaroy Allah idin barakeeyo dadaala insha Allah waa gaari doontaa. Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga horta videoga hadduu ku soo gaaro like saar dana wada asxaabtaada. Maanta waxaan la joogaa Macallin Xaawo. Macallin Xaawo maalin wanaagsan maalin wacan waa maalin aad iyo aad u qurux badan. waxaan joognaa goobta shaqada waxaan aad iyo aad u faraxsanahay soo ma alxamdulillah. Okay maantay maxaa la wadaagi lahayd asxaabteyda? asxaabta waxaan leeyahay horta waa idin salaanka bacdi waxaan inaan la wadaago oo waxaan ka iraahdo muhiimadda ay leedahay qofka bini aadamka ah inuu dadaalo oo mar walba doonis uu la yimaado waxaas markaas uu rabo oo wanaaga ah sida in lagu dadaalo kala shaqada arrintaas ayaan ku boorin lahaa. dadaal noocay ay u baahan yihiin si ay u gaaraan hadafka iyo guusha ay rabaan. marka koowaad wax walba waxay ku qadarka Ilaahay ku socdaan laakiin waxa loo baahan yahay markasta dadaal loo baahan yahay iyo doonis. waxaan jeclahay dhalinyarada inaan la wadaago tusaale yar oo muujin ka turjumayo doonista muhiimadda ay leedahay. tusaalahaas waxaan rabaa inaan u soo qaato sheekada Maryam bintu Cimraan iyadoo fool ah umul ah kaligeed ah inkastoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garabkeeda ah mar walba haddana Ilaahay wuxuu yiri geedka laf si ay kugu soo daadato timir oo aan cuntid. waxaan leeyahay marka Maryam bintu Cimraan Ilaahay wuu awooday in timirta loo soo daadiyo miraha loo soo daadiyo agteeda la keenay Ilaahay wuu ka awood badan yahay intaas laakiin taasi waa xikmad rabbaani ah ma tusinaysaa sida ay muhiim u tahay qofku inuu la yimaado dadaal doonis inuu la yimaado. waxaan leeyahay dhalinyaroy Allah idin barakeeyo dadaala insha Allah waa gaari doontaan. Assalaamu calaykum. dadaala waad gaari doontaan waa dardaarankii Macallin Xaawo sharaf iyo karaama la wadaaga asxaabtina videogan waa video aad iyo aad muhiim ah like waa muhiim dhiirigelin bay tahay sharaf iyo karaama.